نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا السلام يا أصحابتك وحنا شنك فردوس تنساني وحنا معه علينا يا أصحابتي هراء وحنا يجنا أن هاد علينا يا الله وكم هالستين كسر بيرتان كأصحابت عصب هذا أكليب كي كان أصحابته ياركتم حنا ذيك عصنا يا وسبسكرايب لايك شير يكومنتي عاف ما طبعا كومنتي جماعة إن شاء الله بإذن الله وحين وجود عيننا إبراهيم إسماعيل سجول صوران oo shalay toolatiisii xaqaha ku galbaday oo maalintii uu adduunka ka tagayay ee macasalaamay ay ahayd waxaan tacsi u dirayaa ehelkii asxaabtii dhammaan reer Soomaaliland oo dhan marwooyinkiisii awlaadii uu ka tagay dhammaan waxa aan leeyahay ilaahay samiriye iimaan saadiqa haynaga wada siiyo ilaahay samiriye iimaan saadiqa haynaga siiyo dhammaanteen wuxuu ahaa geed inaga wuxuu yiri geed ka dhacay baan umada dheerayn runtii wuxuu ka soo qayb qaatay anigu ogaa intaan Hargeysa ku sugnaa waxyaabo badan ayuu ka soo qayb qaatay wuxuu ka soo qayb qaatay sida loo cirib tirayo qabyaalada uu ka soo qayb qaatay wuxuu kaloo ka soo qayb qaatay deegaanka iyo informatiga dhirtii la goynayay ee dhuxusha laga shidanayay isaga ayaa ka qayb qaatay waxa kale oo ka qayb qaatay sida wadooyinka wadadii ceere gaaboon anigu ku sugnaa lacagtii malaayiinka ahayd sababtii loo guray waxa iska lahaa Ibraahim Ismaaciil Sugulle Sooraan markii la yiri maanta riwaayada waxa dhigaya Ismaaciil Sugulle Sooraan alla jannatul firdawsaha ka waraabiyo malaayiin hotelkii meel kala istaaga la waayay iyagoo qof walibana ku baaqaya lacago waxa uu ka qayb qaatay wadadaas ay ka dawladihii waaweynaa ay ka baqeen isaga ayaaba ka qayb qaatay habkii lacagta loogu ururiyay habkii lacagta loogu diyaariyay iyo dhismaheediiba Ibraahim Ismaaciil Sugulle Sooraan wuxuu kaloo ka soo qayb qaatay dhaqan xumada isaga oo waxay dadku moodayeen in riwaayado runtii qofkii fahmaya riwaayadaha uu dhigayo riwaayadaha uu dhigayo caruurtii xaqana igala joogta riwaayadaha uu dhigayo runtii wuxuu ku soo bandhigi jiray sida dhaqan xumada loo cirib tirayo xitaa social media dhibaatadu dhalinyarada ku hayo wadooyinka iyo dhismaha iyo horumarka wuxuu ku soo bandhigi jiray kare informatiga iyo deegaanka nabadeynta qabyaalada wax kasta uu ka soo qayb qaatay Ibraahim Ismaaciil Sugulle Sooraan Ibraahim Ismaaciil Sugulle Sooraan wuxuu ahaa naf ilmaha yar ee dhashay ilmaha weyn isku si ula dhaqmi jiray waxa kale oo dheeraa ninka madaxda ah iyo qofka uu maanta arko ma sha Allah tabaaraka waa naf isla weyni ka dheeray waxa kale oo ka dheeray Ibraahim Ismaaciil waxa ka dheeray inuu kaliyata dhalinyarada inuu iska weynaysin role model ayaaba u noqday dhalinyaradii reer Somaliland maalintii ay arkeen Ibraahim Ismaaciil Sugulle Sooraan waxa ay mid waliba hammi wuxuu galay inuu wax jili karo inuu wax soo tabin karo inuu ka qayb qaadan karayo deegaankiisa iyo informatigiisa iyo dhammaan dadkiisa inuu ka qayb qaadanayo geerida aad baan uga naxay runtii geeri anigoo kaliya ka naxayna ma aha dhammaan qof kasta oo Soomaali iyo meel kasta adduunka ka joogana waa uu ka naxay waxa kale oo uu cirib tiray runtii Ibraahim Ismaaciil Sugulle Sooraan wuxuu kale oo uu cirib tiray oo aad ogeydeen مثلا qashinadii iyo nadaafad daradii isaga ayaaba ka soo qayb qaatay sida oo hawlo badan oo aanay dawladda hoose qabanin ayaa wacdigiisa iyo taladiisu dadkii inta badan ay maqashay waxa kaloo kamid ahaa shaaxi ama maqaaxiyihii kulaylka biyaha kulul
ay ku shubi jireen riwaayadiisii aadka u saameynta badnayd ee bisadaha iyo xayawaanka iyo waxa dadka la nool habka loola dhaqmayo waayo waxa uu aaminsanaa ibraahim ismaaciil sugulle sooraan wuxuu aaminsanaa in dad jin iyo insiba la wada nool yahay oo dadku wada degan yahay si aan dadkiina dhibaato usoo gaadhin dadkan inala nool ama jin ha ahaadaan ama insa ha ahaadaane ay isku soo labihi karaan sida bisadaha waxyaabahaas matalan waxaad ogeydeen Hargeysa intaasoo kun oo habloodba maalin kasta dhici jirtay lana ildaneed xanuunka jinkaas waxa uu baray dadka waxaad arki jirteen Hargeysa oo kale in ay hablaha dhaca amaba jinka ku jira ay badnaayeen sababaha keenaya iyo waxyaabihii keenayayna oo uu ka qayb qaatay iyadoo uu baray oo macallin u noqday bisada meel taagan ee aad biyaha kulul ku shubaysaa in wax ku soo labahan karaan maska meel labada maseed u kala hiilinaysa oo kale inay wax isku soo labihi karayaan cuntada lagu qurayo qashinada inaad meel dhigto waayo diinteennii baa ina baraysa riwaayaduu ka dhigi jiray ibraahim ismaaciil sugulle sooraan waxa aan ilaahay uga baryayaa jannatul firdawsa inuu geeyo inagana gafkeena iyo geerideena simin noqonana runtii waxaynu nahay dad mayd baynu runtii nahay waa mayd soconaya ayaabaynu nahay goor xillig lagu soo jiro si aad u dhiman karto saacadda aad dhiman karto waxa aad ku dhiman karto midnaba ma ogid saacadiisii baa dhammaaday caabuqa corona la leeyahay saacadiisii ayaabaa dhammaatay ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii uu u qabtay dalkan iyo dadkan iyo dhaqankooda uu ku saxayay oo uu dhaqankooda ku saxayay oo uu diintooda ku saxayay iyagu dadku inta badan qaar waxay moodi jireen waxay u qaadan jireen oo kaliyaata in qosol uu ahaa runtii qosol waa uu ka hami dheeraa sooraan aad buu uga hami dheeraa hamigiisu wuu ka dheeraa in badan hamigiisa aad iyo aad buu uga dheeraa inuu la qoslo oo kaliyaata laakiin wuxuu ahaa macallinka nolosha wax wal oo aan soo sheegay hadday deegaan tahay hadday dhaqan tahay hadday diin tahay haddii ay dadka lagula noolyeynay jinka iyo insiguba isnabadgeliyaan ay tahay wadooyinka hadday tahay nabadaynta hadday tahay ololihii doorashooyinka hadday tahay horusocodka Somaliland hadday tahay wax walba oo horumar iyo waxaan ku yidhi wal amra bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ibraahim ismaaciil sugulle uu ka soo qayb qaatay runtii aad iyo aad buu uga soo qayb qaatay waxa aynu leenahay ha loo duceeyo dawladda Somalilandna waxa aan leeyahay maalintaas qofka waxa loo sameeyaa aas qaran dadkii uu ka tagay lama oga in la ogaado oo loo tacsiyadeeyo oo la xidhiidhiyo oo wixii loo qaban karo awlaadii iyo marwooyinkii uu ka tagayna in dawladda maanta leedahay qaranka waxbuu u taray haa dhab weeye waa usoo taray allah ha u naxariisto jannatul firdawsa alla ha geeyo idinkuna bal waa in inta aad kolleyba xilli ay saacadiina idinka laftigiina dhammaatay la garan maaye in aad idinka laftigiina xidhiidhisaan dadkii role modelka amaba saameynta ku lahaa Somaliland oo saameyn ku lahaa in aad dadkiisii xidhiidhisaan oo dawladii kasta ee bahalaysmataaba dawlad kasta oo samaysantaaba ay ogaato dadka role modelka iyo saameynta ku lahaa Somaliland dadkoodii ehelkoodii asxaabtoodii bal ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay baa xifdiyi kara ciddii uu ka tagay ilaaha abuurtay awlaadii uu ka tagay ee uu u shaqaynayay ilaahay ayaa xifdiyi kara ilaahay baa xifdiyaya adoonkiisana ilaahay ma dayaco ilaahay waxaan uga baryayaa inuu mar labaad iyo mar saddexaadba jannatul firdawsa alla geeyo ilaahay inuu u dambi dhaafo jannada ugu sareysa inuu ilaahay geeyo inagana inooga daba naxariisto
ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo abwaanadii iyo jilaayaashiina oo ugu horeeyo jawaan runtii jawaan maanta garab weyn baa ku banaanaanay oo ugu horeeyo jawaanna waxa aan leenahay ilaahay samiriye iimaan saadiqa haynaga wada siiyo dhammaanteen waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh